tababarkan lagu baranayay iyada biyaha ayaa waxaa soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoo ku dhiirigeliyay xubnaha ka qaybgalayaasha tababarka inay fursadan kula noqdaan bulshada. ka qaybgalayaasha tababarkan oo ka kala socday wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, hay'adaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya biyaha iyo aqoon-yahano kale, waxaana sheegay inay ka faa'iideysteen muddada 3 maalin oo tababarkan soo socday. agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Maxamed ayaa sheegay in ay sii socon doonaan tababarada noocan oo kala ah markaana ay wada shaqayn dhow la yeelanayaan dhigooda xafiisyada dowlad goboleedyada dalka. tareynimo badan soo socdan waan badin doonaa kulanka biidnillaah ilaahay haduu noo suurta geliya insha Allah taala. laakiin waxaan rabaa qofkii trainingan intii loogu yeeray aan ka faa'iideysanin ama aan arkin asaga inuu training kala sii qabanayo uu sii gudbinayo fursad kale ma siinayna, qof kale loo raadin fursadaas lagu ma soo celcelinayo asaga taasna ogaada. insha Allah waan isla soo wada xariireynaa birina agaasimayaashiina la kulmaaya ilaahay doomaya dhim wada kulmi doonaa waan tashan doonaa. waxaan filayaa wada fiican oo kuwii hore ka wanaagsan ama ka sii fiican inaan furi doona. dhammaan xubnahan ayaa ku tababaranayay qalabka lagu baaro biyaha oo ku saabsan tayo dhowrka iyo sidii bulshada loo gaarsiin lahaa biyo nadiif ah. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.